kulan cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisay Somali STEM Society ayaa maanta lagu qabtay xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaana ka soo qayb galay bandhig cilmiyeedkan ardada wax ka baratay jaamacadaha Beledweyne iyo sidoo kale kuwa wax ka bartay dugsiyada sare maamulka gobolka Hiiraan maamulayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Beledweyne iyo sidoo kale marti sharaf kale Ahmed Aadan Xuseen oo ah wakiilka Somali STEM Society ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka bandhig cilmiyeedkan iyo muhiimadda uu u leeyahay ardada iyo bahda waxbarashada bandhigiyo ama la magac baxay Somali STEM Society sida boorkeedii ka booqan Somali STEM Society waxaa looga hadlayaa hal-abuurka wax soo saarka iyo ikhtiraca innovation and creation bulshada waa inay ka baxdaa in waxyaabaha dibadda laga keeno oo kaliya ku tiirsanaato oo bulshada ay noqoto bulsho wax soo saar leh bulshada haddii laga dhiso qaybta science-ka oo practical leh iyo teknolojiyadda oo caalamka maanta ku tartamayo iyo injineerida oo qaabka wax la isugu xeerayo diyaaradaha iyo designada loo dhiso iyo xisaabaadka oo waxa dhan looga maarmin haddii inta bulshada lagu taageero oo si fiican loo apply gareeyo oo si fiican loo dabaqo waxa imaanaya bulsho horumar leh maamulayaasha xarumaha waxbarashada iyo aqoon-yahanadii ka soo qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyay waxaana ay u mahad celiyeen Somali STEM Society oo madhigan soo qaban qaabisay daayirtii gobolka in ay soo bandhigayaan isku day aad u wanaagsan runtii waa wax la dhiirigeliyo la garab istaago u baahan maaragtay in qarash kale iyo wax hor leh lagu bixiyo waqti kale hor leh si u sameeyaan inta ay maanta soo bandhigeen wax ka sii horumarsan laakiin maanta waxaa farxad ah oo ani kulli farxad weyn ah inaan munaasabad hal abuur ah ka qayb galno munaasabad hal abuur ah oo ay isku dayayaan jiilkeennii gobolka Hiiraan inaan ka qayb galno isku day ah waa farxad hor socod fiican leh aad iyo aad runtii waa wax weyn oo lagu farxo waay in la fikiro maskaxda ay shaqeyso ay wax soo saarto waa wax quraanka uu nagu baraarujiyay sidoo kale inta hadda jirta ee horumar la gaaray waxa salka u ah ama sababay sida culimadu ay sheegaan laba arrin intii uu socday bandhig cilmiyeedkan ayaa qaar ka mid ah ardada jaamacadda Hiiraan iyo jaamacadda Beledweyne iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardada dugsiyada sare waxa ay soo bandhigeen qalab elektarooniga ku shaqeeya oo ay farsameeyeen sida baabuurta iyo diyaarado ay doonayaan in mustaqbalka sameeyntooda ay ku guuleystaan mas'uuliyiinta waxbarashada jaamacadaha iyo aqoon-yahanadii ka qayb galay kulankan ayaa waxa ay ka doodeen sida waxbarashada loogu bedeli lahaa qaab farsamo si loo helo bulsho wax soo saar leh gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa sheegay in loo baahan yahay in la joogteeyo kulamada noocan ah si looga faa'iideysto maskaxda da'yarta Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin waxbarashada maasantiin waxaan ku celcelinayaa oo aan ku soo gunaanadayaa maamulka gobolka Hiiraan oo gudoomiyaha gobolka ugu horeeyo iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno bahda waxbarashada meesha ay noo diraan iyo meesha ay nagu aadiyaan iyo meesha ay naga dalbadaan inaan kala qayb galno aad iyo aad Aadan Cabdi Axmed Universal TV Beledweyne